tallaabada ugu horeysa ee loo baahan yahay in la qaado sidii carruurta loo tarbiyadeyn lahaa ay tahay in carruurta laga tarbiyadeeyo dhinaca caqiidada see looga tarbiyadeynaya waxaa looga tarbiyadeynaya waa in ilmaha lagu beero qalbigiisa jiritaanka ilaahay هذا أهم شيء وجود الله سبحانه وتعالى إلهي بأن أبوري إساق خالقنا إلها إن أبوري سبحانه وتعالى وحليه هي مقعيو يصفون بوليه قرآن كلا ينوش هاي سنة الله ينوش هاي نبي صلى الله عليه وسلم وإن بري عظم هذا يويني ذا إلهي وين المها إسوا يرقل بيسلقليو أو فهموه إن كان يأدو يدا بحد وين intaasoo yani lagu leeyahay waaba yani bilyanis xidigo in baaxadiisa aan la qiyaasi karayn yaa abuuray inagu xaqeenu ka nimid adduunkan yaa haya cadceeda yaa soo saara ana ku hadlaya levelka carruurta ee hor fadhida waxa weyn ilaahay jiritaankiisa iyo awoodihiisa iyo cilmigiisa iyo qudradiisa iyo xikmadiisa in ilmaha lagu beero isagoo aad u yar taa waxa raacaysa in ilmaha la baro in noloshu aanay tan aynu ku noolahay oo kaliya aan ahayn ay jirto nolol aakhiro nolosha aakhiro maxay u jirtaa waxa u jirtaa waa la isxisaabinaya qof walba bini'aadam maalintu qaan gaaro wixii uu ku hadlo iyo wixii uu fale uu sameeyo ee ficila inta malaa'ig baa ka qorisa malaa'igtaasi waxay record gareynayaan oo ay diiwaan geliyaan acmaashaadii iyo maxay iyo aqwaashaadii maalinta qiyaamaha marka lagu soo saaro ee ilaahay soo taagtana waxa maalinka maanta laga xisaabiyaa wixii aad ku hadashay iyo wixii aad amal fashay hadduu wanaag ahaa wanaag baa lagaaga abaan marinaya hadduu xumaan ahaa xumaan baa lagaaga abaan marinaya